بسم الله الرحمن الرحيم waxaan eegaynaa hal video oo gaaban oo ku saabsan video subtitle ama translation-ka inaad turjuntid videogan. marka tusaale ahaan videogan yar ayaynu bedelaynaa. waa video yar oo ah 1 daqiiqo iyo 13 second. marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa videoga waxaan ka furaynaa VLC media player kadibna waxaynu eegaynaa inta daqiiqo ka kooban halkan waxa ku qoran inta daqiiqo uu videogan ka kooban yahay waa 1 daqiiqo iyo 13 second. waxaan rabaa inaan ku soo damo translation and subtitle. marka anigu waxaan isticmaalayaa habka ugu fudud ee subtitle loo isticmaali karo. programkan yar ayaa notepad ka soo furayaa. notepad-kan markaan soo furo open dhaho hore translation hore ay ugu jiray. marka halkani waa translation-ka koowaad, translation-ka labaad ama subtitle-ka saddexaad, subtitle-ka afraad si uu qoraalku soo kala horeynayo. halkan waa hours-kii, minutes-kii, seconds-kii iyo millisecond-kii wax second-ka si yar. halkani waa font-gii farta ku soo baxay qoraalku waxay noqonaysaa cadaan. halkana fartii nooceeda ku qorayaa kadibna translation-ka labaad ayuu gudbiyaa. waxaan bilowna videogan kadibna aanu eegno sida translation-ka isu bedelayo. marka la hadlayo ayaynu ku dul qabanaynaa. waxaynu eeganaynaa seconds-kan videoga halkan ka soconayo. hadda wuxuu socdaa 2 seconds. سيدي wuxuu bilaabay 13 second. halkan waxaan u dhigaynaa waxaan dhahaynaa 13 second. wuxuu dhahayaa wuxuu yidhi sayidi taliyahaygiiyo tusaale ahaan baan carabi wareegay faa taliye ama guddoomiye. لا يبدو الطريق صحيحا. maynu gaadhin wadadii saxda ahayd. kadib waxay ku joogtaa waxaanu ka qaadnay 13 ilaa 16 bay ku joogtaa. halkan waxaan ka dhigaynaa 16 waa second-ka 13 ilaa second-ka 16. kadibna translation-ka labaad ayaynu u gudbaynaa subtitle-ka labaad. wuxuu ka bilaabi doonaa 22 baynu halkan ka dhigaynaa waayo waxbuu tilmaamaya haddana hadalku bilaabayaa. haye أرى فتاة هناك. wuxuu dhahayaa halkaa waxaan ku arkaa gabadh yar. markaa 23 buu ka 22 buu ka qaaday ilaa wax ku gaarsiiyay 23 waayo halkan wuxuu joogaa second-ka 23aad. لنسألها. waynu weydiinaynaa soo ilaa 4 marka way noqonaysaa. waynu weydiinaynaa marka wayna second-iska sii badinaa ilaa 4 ka dhignaa. حسنا. kana wuxuu yidhi daqiiqadii second-kii 25aad second-ka 25aad ilaa second-ka 26aad wuxuu yidhi xasanan. haye weli way socotaa daqiiqada waxaynu maraynaa second-kii 36aad. يا بني. kadib wuxuu ka bilaabay 40 second-ka 40aad wuxuu yidhi gabadha wuu sii wata hadalkiisa weli.
كيف الوصول إلى قبيلة أنجيلا؟ sidee baynu ku gaari karnaa sidee baanu ku gaari karnaa qabiilka reer Unjila deegaankooda tusaale ahaan wuxuu ku jijiyay wuxuu ka qaaday 40 ilaa 42 ilaa waxaan dhahaynaa 42 kadibna 43 bay hadalkan ay ka qaadanaysaa 43 waxaan dhahaynaa halkan waxaan dhahaynaa 43 bay ka qaadaysaa ilaa waxay gelinaysaa 44 هذه قبيلة أنجيلا من أنتم؟ إلى 45 في جوجل شيرها هذا هو halkan meesha ay degaan reer Unjila idinka yaa tihiin نحن من قبيلة كيان المغول. ويلكم حكا قاتي 40 iyo 6 buu ka qaatay 46 second wuxuu yiri waxaanu nahay qabiil reer Mongoolka ama Tatarka sida dadku yaqaaniin wuxuu ku joojinayaa 46 ka qaaday 46 ku soo yeeray 46 ka qaaday أنا المغولية من أنت؟ adiga ayaa tahay uu dhahay ilaa wax ku gaarsiin markaa 40 سؤال بويدي كان 46 ka qaaday ilaa wax ku joojiyay 46 أدعى بورتي وأنا من أنجيلا من أنت؟ أنت نسوكو بقرة marka translation بس كلمة تضوء بحيث سالة هاي سالة ير kadibna waxay tiri way ka qaaday 52 way ka qaaday waxay tiri waxaan ahay boorti adiga ayaa tahay intii qoraalka hore iska taatay ilaa waxay gaarsiisay markaa 54 waayo 40 sida hore soo dhaafay 54 gabadhii weydiiyey oo ka qaaday 1 daqiiqo ilaa 1 daqiiqo iyo 1 second buu la hadliyay wuxuu dhahayaa gabadhaydiyey xagee weeye gurigeena buu weydiiyey odaygu halkaa marka marisay way sii socotaa sheekadii weliba su'aal يقع بيتي هناك. maxay dhahday gurigaygu wuxuu dhacaa halkaa gurigayagu wuxuu dhacaa halkaas kadib waxay uga jawaabtay waxay ka bilowday waxaa uga bilowday
hal daqiiqo iyo 2 second buu qaaday waxayna u gaarsay 1 daqiiqo iyo 4 second. بورتي مع من تتكلمين صغيرتي ها؟ odaygaa soo booday wuxuu yidhi 1 daqiiqo iyo markay maraysay inta baysa ku bagale daqiiqadana soo eegay wuxuu yidhi 1 daqiiqo iyo wuxuu soo booday 5 daqiiqo 5 second ilaa 1 daqiiqo iyo wuxuu hadlayay 7 second wuxuu yidhi boortiyey wuu yeedhay maxaad kala hadlaysaan gabadhayda ilaa tusaale yar weeye waa ilaa intaas oo kale marka intaas sameyno kadib waynu save garayn waxaan save as kadibna iska soo cancel kadibna videoga ayaanu soo daaraynaa translationka waynu dhameynay waxaa hadhay in videoga ku apply garayno translationka bal aynu eegno videoga waxaan leenahay subtitle baynu tegaynaa kadibna r subtitle desktopkaynu waynu waxaa noo yaalay mid la dhaho subtitle kadibna videogii waa kan. سيدي لا يبدو الطريق صحيحا. أرى فتاة هناك لنسألها. حسنا. يا بني كيف الوصول إلى قبيلة أنجيلا؟ هذه قبيلة أنجيلا. من أنتم؟ نحن من قبيلة كيان المغولية. من أنت؟ أدعى بورتي وأنا من أنجيلا. من أنت؟ أدعى تيموجان. أين يقع منزلك يا صغيرة؟ يقع بيتي هناك. بورتي مع من تتكلمين صغيرتي ها؟ هذا هو والدي. marka videoga hadda waa dhan yahay marka translation ka sameeyay waxyaabaha iska ilaalinaysa maxaa kamid ah ama subtitle-ka hadii aad tusaalahaan bakan oo kala heshid ama isla heshid programka free-ga iyo programka Windows ka soo iska free waxa iska ilaalinaysa meeshan mutaloga halkan halba ku qoran in intaan kan kala gaarin uu dhaxay hal space kan hal space u dhaxay hal space u dhaxaysiyo spaces oo badan yihiin oo labada tiro walba hal space u dhaxeeyo si wuxuu u dhigay translation-ku ama subtitle-ku kala horeeyo waxa kaloo iska ilaalinaysaa hadda mutalo kale second-ka 13aad ayaa hadalka bilowday wuxuuna hadalku istaagay second-ka 16aad laakiin hadalka hadda tiraahdo ka bilaabma 14 ku joogsado 17 labada hadal bas dhex gelaya soo marka hadal dhameysi waa inaad kan kala bilowdaa oo hadda 13 aad ka bilowday 16 ku joojis waa inaad 16 ka sii bilowdaa ama ka sii bilowdaa 17 kadibna 18 hadii asaas ku adag tahay inaad millisecond kan iskan yar aad isticmaasho waa millisecond waxa dhaysaa 13 second iyo 2 millisecond hadalkaas hablamo hamil joogsado 16 second kadibna ka qaad 16 iyo 5 millisecond halkan ba 5 ka dhigaysa ama 20 millisecond marka intaas ayuu translation ku ama subtitle ku eegyahay.